بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال صاحبيال مeel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa soddonka bisha May sanadka 2026 qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa xuduudaha Iiraan maxaa ka dhacaya weerarada kooxaha hubeysan iyo ciidanka ilaalada ee xuduudaha Iiraan dhex maraya hubka la sheegay in Iiraan gudaha la doonayo in loo geliyo ee laga hortagay iyo hantida in ka badan 70 ruux oo dowladda Iiraan ay la wareegtay sababta ka dambaysa maraykanka wasiirka gaashaandhigga oo ku hanjabay duqeyn culus inay ka fulin doonaan gudaha dalka Iiraan haddii hal arrin aan la samaynin waxaan kaloo aan eegi doonaa baarlamaanka dowladda Iiraan go'aanka ay qaateen oo marinka Hormuz ku saabsan iyo dowladda Masar oo ka digaysa heshiiskii magaalada Gaza gabi ahaan inuu burburo dagaalkana dib loogu laabto qodobo kale ayaa raaci doona insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale maracada show barnaamijka falanqaynta caalamka adigiyo asaaga asal waad wadaagtaan aragiyo itaalkiyo inayana ma dheeride aqoontaad ku dhaaftaa معهد نافع أونلاين waxa ay ku diyaarisay barashada higaada Carabiga oo aad muddo yar oo kooban ku baranayso iyo taxfiidka Quraanka Kariimka ah iyo sidoo kale culumta shareecada sida fiqiga xadiidka tafsiirka siirada iyo luqadda Carabiga halka waxa kugu diyaara macallimiin ku hadla afka hooyo ee Soomaaliga iyo luqadda Ingiriiska waxaadna kala xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda معهد نافع لتحفيظ القرآن وعلومه marka la isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa warbixintan oo baraha bulshada ku saabsan aad bay ii soo jiidatay waxaan rabaa inaan ka eegno sida caalamka uu fakarayo iyo dhibaatada dadkeena haysata marka la joogo baraha bulshada oo loo baahan yahay in la iskula xisaabtamo sida warbaahinta ay baahisay go'aan sharci ah oo taariikhi ah ayaa laga gaaray dalka Mareykanka kaasoo ku qasbaya shirkadaha waaweyn ee baraha bulshada inay bixiyaan malaayiin dollar si loo xalliyo dacwad lagu soo oogay oo ah in adeegyadooda ay ka qayb qaateen dhibaatooyinka dhanka caafimaadka dhimirka ee ardada waxbaranaysa haddaba waxaa la yiri adeegyadiina baraha bulshada ayaa qayb ka ah caafimaad darrada dhanka dhimirka ee ardadeena waxbaranaysa shirkadahaasi waxaa ka mid ah shirkadda Meta oo Facebook iyo Snapchat iyo isku haysata WhatsApp-ka shirkadda Alphabet oo Google ay ka mid tahay iyo shirkado kale waxay ogolaadeen marka inay bixiyaan 29 milyan oo dollarka Mareykanka kadib markii lagu eedeeyay barnaamijyadooda inay saameyn taban ay ku yeesheen caafimaadka maskaxda ardada waxbaranaysa ee ku nool kaliya gobolka Kentucky lagu magacaabo oo dalka Mareykanka ah hadda gobolkaas ardadii waxbaranaysay caafimaadkoodii maskaxeed ay arrintan saameyn ku yeelatay baa la yiri yani baraha bulshada lacagtaas ayaana laga doonaya in laga qaado waxa laga yaabaa wili faham inaad u baahan tahay ka hor intaanan faahfaahin dheeraada ku siinin shirkadda Meta aan kula wadaago waxay bixin doontaa 9 milyan oo lacagtaasi ka mid ah 2 milyan shirkadda YouTube ayaa bixin doonta Snapchat 8 milyan ayay bixin doontaa TikTokna sidaas oo kale 8 milyan oo dollar ayaa laga doonayaa haddaba sidee ardada marka maskaxdooda baraha bulshada ama social media ay u saameysay aan kula wadaago dacwaddu waxay ku salaysan tahay fikirka ah in baraha bulshada aysan dhibaato ku keenin hal shay oo kaliya balse ay isticmaalaan naqshado iyo algorithm u sahlaya dhalinyarada in mar haddii baraha bulshada ay soo galaan aanay ka dhex bixin maskaxdoodiina gabi ahaanba halkaas yani lagu qufulay sidee waxa la yidhi kow waxay ka shaqeeyeen in qofka isticmaalaya barahooda bulshada inuu addicti gareeyo ama uu la qabatimo mar haddii TikTok soo dhexgalo ama Instagram soo dhexgalo ama YouTube soo dhexgalo ama Snapchat inuu isxakameyn waayo oo maanta oo dhan scrolling yani iska gudbi kan xiga aad isagoon haddana waxba aanan ka faa'iideynin oo dad kala duwan ay u soo galayaan mid faa'iido u wada mid aanan faa'iido u wadan mid maskaxdooda ku ciyaaraya haddaba eeg waa Mareykanka oo qofka content creator-ka ah yani baraha bulshada wax ku soo gudbinaya xitaa la og yahay inuu wax wasaqaysan oo la imaan karin haddana waxaa la yiri waxyaabaha qaar يعني inkastoo dhaqamo xun mararka qaarkii iyaga xitaa ay gudbiyaan yaanan dhinaca kale ka eegine inkastoo dhaqamadaasi xun aadana ay dadka ay u soo bandhigaan haddana waxa la yiri arrintaas maskaxdii carruurta ayay saameyn ku yeelatay maxaan muuqaalkan u soo qaatay marka waxaan u soo qaatay ama warbixintan aan iraahday aan u soo qaatay dhalinyarada Soomaaliyeed bal eeg waxay baraha bulshada ku soo gudbinayaan yaa daawanaya marka waxa daawanaya carruurtii aan doonaynay inay wax bartaan dhalinyaradii aan islahayn waa 14 jir waa 18 jir waa 16 jir
yani waa jiilka hadda soo baxaya horumarkana laga doonayo inay sameeyaan iyagayaa baa daawanaya maxay taana dhaxal siisay marka waxayna dhaxal siisay fawaaxishba yani midda ay ka xun tahay inay dhallinyaradii yaryareed ay isaga daysadaan maxaa yeele hal abuur ma lahan soomaalidana koobi ayay ku dheeraysaa nin baa arkaysaa oday waayeel ah oo wadada maraya intuu cimaamad ka dafo toorey la soo baxaya midkii kalena markuu is yidhahdo ninkan waa la daawaday isagana wuu ku daysanaya wax ka sii daran buu keenaya mararka qaarkiin waxaan arkaynaa xumaantiiba inaanay markhaati u baahnayn oo qofkii isaga uu soo fariisanayaba sidaa daraaddeed marka waxaa habboon in laga fakero laga bilaabo qoyska guriga laga bilaabo degmada laga bilaabo dhallinyarada xaafadda qof kasta inaan la dhihin xitaa war dowladdu may wax naga qabato waa in dadku ay isku tashadaan oo isku xirnaadaan oo dadka dhaqamadaasi xun gudbinaya baraha bulshada ku gudbinaya lala xisaabtama dowladduna iyada inay la xisaabtantaa ugu yaraan shirkadaha internetka soo gudbinaya waa in yani la yidhaahdaa waxyaabahani qaar ka balowgareeya markay dadka ay soo daabacaan aan soo laabana marka barnaamijka usoo laabanay shirkadahan waxaa lagu eedeeyey inay Instagram inay sameeyaan scrolling wax la yiraahdo inay sameeyaan notificationo yani maanta oo dhan warbixin ama ogeysiis baa usoo dhacaya qofkii oo snap kaga imaanaya ama kaga imaanaya YouTube ama meel kale kuwaas oo aan manfac badan u haynin dadka maskaxdoodii ayay marka waxa la yiri problem ku abuurtay ama dhibaato ku abuurtay walaaci niyad badan ayay ka dhaxleen dhibaatooyin waxbarasho ayaa yimid oo attentionkii ama dareenkii ayaa yaraaday oo macallimiintii iyo waxbarashada loo qabay taas marka waxay keentay in lala xisaabtamo xitaa hurdo la'aan baa ku dhacda baa la yiri dhallinyaradii lacagtan ayaa lagu ganaaxay oo 29 milyan ah waxay ku qasbanaan doonaa marka wixii hadda ka dambeeya dadka dhibaatada maskaxiyan waxyaabaha kuwa caruurta soo gudbinaya inay muuqaaladooda ilaaliyaan oo gmailada dadka da'dooda ay yartahay ku samaysto oo kale aanan loo geynin muuqaalada anfacaya mooyaane aan soo laabano una soo laabano caalamka iyo wararka ugu waaweyn dowladda Iiraan ayaa saacadii ugu dambeeyay la kulantay weeraro kala duwan oo deegaanada dhinaca xadka ka dhacaya ilaa 3 goobood ayaan kula wadaagi doonaa dhacdooyin la diiwaan geliyay gudaha dalkaasi Iiraan aan ku hormarno warbixin Press TV ama telefishinka Iiraan laga leeyahay lagu daabacay laba ka mid ah kooxaha hubeysan oo dowladdu ay ku tilmaamtay inay argagixisan yihiin ayaa lagu dilay iskahorimaad hubeysan oo dhexmaray ciidanka ilaalada xuduudaha iyo kooxdaasi weerarkaas oo sida la sheegay ka dhacay gobolka galbeedka Azerbaijan lagu magacaabo gaar ahaan degmada Jaldoran lagu magacaabo taliyaha ciidanka ilaalada xuduudaha ee dowladda Iiraan General Ali Akbar Javidan ayaa warbaahinta u sheegay sabtida maanta ah in kooxdan hubeysan ay isku dayeen inay weerar ay ku qaadaan saldhigga ciidanka ilaalada xuduudaha ay ku leeyihiin gobolka galbeedka Azerbaijan dhaca iyadoo habeenkii Khamiista sidaani oo kalena weerar la diiwaan geliyay laakiin taliyuhu wuxuu sheegay in la fashiliyay lagana hortagay weerarkaasi sidoo kale wuxuu sheegay in ciidanka dowladda Iiraan ee kooxdaas ay ogaadeen ka hor intaysan gudaha u soo galin dalka iyaga oo adeegsanaya xog sirdoon iyo kormeer joogto ah taas marka waxay ka dhigan tahay kooxahani hubeysan in meel ka baxsan Iiraan ay ka yimaadeen iskuna dayeen inay amni darro ay ka abuuraan gudaha dalkaasi Iiraan markii dhaqdhaqaaqooda la ogaaday ciidanka ilaalada xuduudaha ee dalkaasi Iiraan ayaa rasaas furay waxaana iskahorimaad saacado socda la sheegay inuu ka dhacay xadka gobolka lagu magacaabo galbeedka Azerbaijan generaalka waxaa intaas uu ku daray in iskahorimaadkaasi lagu dilay 2 xubnood oo kooxda ka tirsan ciidanka xuduudaha ee Iiraan dhaawacyo ay soo gaareen waxaa kale oo uu tilmaamay in rasaas ay gacanta ay ku dhigeen qoryo AK47 iyo M16 telefoonkii gacanta ee ay kooxda isticmaalaysay iyo boorso sida la sheegay ku jireen agab shakhsiyadeed iyo qalab military baaritaano ayaa soconaya sida taliyaha uu sheegay isla dhacdadaasi oo kale waxaa laga diiwaan geliyay gobolka lagu magacaabo Jakigoor oo deegaanada dhinaca xadka dhaca ka mid ah sidoo kalena gobolka Sistan and Balochistan ayaa lagu waramayaa in ciidamada amniga ee dowladda Iiraan ay gacanta ay ku dhigeen koox hubeysan oo doonaysay inay rasaas iyo hub tiro badan ay halkaasi ka soo gudbiyaan gobolkan wuxuu ku yaalaa xuduudaha Pakistan iyo Afghanistan iyo sidoo kale Iiraan si gaar ahaaneed Pakistan iyo Iiraan xadka ay wadaagaan waxaana lagu waramayaa halkaasi kooxaha hubeysan inay ku sugan yihiin oo inta badan ba la dagaalama dowladda Iiraan waa weerar kala duwan oo la diiwaan geliyo saacadii ugu dambeeyay iyo iskahorimaadyo dhexmaraya ciidanka ammaanka ee dowladda Iiraan gaar ahaan ciidanka ilaalada xuduudaha Iiraan waxaad moodaa markan inay dagaalo ay ka dhacayaan iyadoo hub badan la isku dayo in gudaha la geliyo dowladda Iiraan taas way ka soo horjeedaa dhinaca kale dowladda Iiraan ayaa gobolka lagu magacaabo Cholistan waxaa lagu waramayaa inay la wareegeen hantida 74 ruux kuwaas oo la tuhunsan yahay ama lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen shabakada cadowga ah
oo ka soo horjeeda danaha iyo amniga qaranka ee dowladda Iiraan. Sidaasi oo kale gobol ka tirsan gobolada dhaca bartamaha Iiraan inuu yaabaan u malaynayaa 24 ruux baa hantidoodii lala wareegay. Waxaa lagu eedeeyey inay caawinayeen Israa'iil iyo Mareykanka intii iskoorimaadiyadii ugu dambeeyay ay dhacayeen iyo bishii January banaanbaxyadii dhacay inay qayb ka ahaayeen iyagoo abaabulay rabshado iyo iskoorimaadyo ka dhacay gudaha dalkaasi Iiraan bishii January ee sanadkan. waxyaabaha ka soo kordha qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugula wadaagayaa insha Allah. wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa waxa uu hanjabaad culus oo u diray xukuumadda Tehran waxaana uu sheegay haddii diblomaasiyadda aanan xal lagu helin Mareykanka inuu mar kale dagaalka dib ugu laaban doono. taa beddelkeeda dowladda Iiraan ayaa sheegtay markii saddexaad madaxweyne Trump inuu ka fakerayo inuu khiyaaneeyo dowladda Iiraan isla markaana inta diblomaasiyadda lagu mashquulsan yahay uu qorsheynayo weerar culus oo lagu ekeenayo gudaha dalkaasi. wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka oo Singapore ku sugan halkaasina kaga qayb galay jimicsi ciidamada ay sameynayeen ayaa waxa uu sheegay in ay awood u leeyihiin inay duqeymo ka fuliyaan gudaha dalka Iiraan dagaalkana ay dib ugu laabtaan. laakiin wuxuu yiri waa in marka hore dowladda Iiraan ay diyaar u noqotaa ka hor intaanan dagaalka lagu laaban wax walba oo wada hadal ah ama miiska wada hadalka. waana awoodnaa buu yiri inaan dukumdaakum aan ka dhigno dalkaasi Iiraan waxaan samayn karnaa mar labaad mar saddexaad iyo mar afraadba inaan bartilmaameysano saldhigyada warshadaha iyo xarumaha muhiimka ee dowladda Iiraan laakiin marka hore waxaan ahmiyadda siinaynaa buu yiri wada hadalka. laakiin la taliyo sare ka tirsan xafiiska Mujtaba Khamenei oo Muhsin Rezai lagu magacaabo ayaa sabtida maanta wuxuu sheegay madaxweyne Trump inuu diblomaasiyadda ku hoos gabanayo laakiin markii saddexaad uu doonayo inuu khiyaaneeyo dowladda Iiraan waxaana uu yiri annaga waan u diyaarsannahay wax walba oo soconayana waan ka warhaynaa. Trump wuxuu doonayaa inuu yiraahdo waxaan qaadnay godoomintii Iiraan laakiin tallaabo kale ayuu diyaarinayaa ama go'aano kale ayuu doonayaa inuu qaato sidaas ayuu yiri la taliyaha ka tirsan xafiiska Mujtaba Khamenei. dhinaca kalena baarlamaanka dowladda Iiraan ayaa lagu warramayaa inay go'aan culus ay qaateen go'aankaas oo ku saabsan marinka Hormuz maadaama wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka Hegseth ninka lagu magacaabo uu taagan yahay waa inay Iiraan ay furtaa marinka Hormuz. baarlamaanka Iiraan waxay soo gabagabeeyeen go'aankooda marka cod u qaadista hindisa sharciyadeed oo ah maareynta marinka Hormuz kadib markii kalfadhigoodii maanta ay kulan ku yeesheen magaalada Tehran. baarlamaanka markii ay soo gabagabeeyeen go'aankaas ayaa waxa lagu sheegay in uu yahay sharci dhaqangalaya kaas oo ku saabsan maamulka marinka Hormuz iyadoo hindisa sharciyadeedkaasi loo codeeyay lana ansixiyay sidoo kalena la dhaqangelin doono. Iiraan ayaa dhawaan samaysay hay'ad si gaar ahaaneed loogu talagalay inay ka shaqeyso amniga guud ahaan ee marinka Hormuz. hay'adaas oo Mareykanka durbaba uu ku daray liiska shirkadaha ama hay'adaha cunaqabataynta lagu soo rogay. ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa dhinaca kale sheegay ilaa 20 markab inay ka gudbeen marinka Hormuz 24 saac la soo dhaafay. maraakiibtaas oo dowladda Iiraan ay ka warhayso sidoo kalena la sheegay inay qayb ka yihiin kuwa ay dowladda Iiraan ay ilaalinayso amnigooda maadaama markii horeba ay fariin soo gudbiyeen. ugu dambeyntii dowladda Pakistan ayaa si cad u sheegtay marnaba inaysan xiriir diblomaasiyadeed la sameyn doonin isla markaana aysan aqoonsan doonin. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladdaasi Pakistan Mohammad Isxaaq ayaa warbaahinta la hadlay waxaana uu shaaca uu ka qaaday in gebi ahaanba dowladda Pakistan aysan arrinta ku dhaqaaqi doonin sidoo kalena ay ka shaqeynayso sidii loo soo celin lahaa xuduudihii iyo dhulkii Falastiiniyiinta ee 1967 iyadoo magaalada Qudusna ay noqonayso caasimadda Falastiiniyiinta. qodobkaasina waxyaabaha ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah. layshar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay. dowladda Masar ayaa ugu yeertay wafdiga wadaxaajoodka ee xogaga iska cabinta ee Xamaas uu hogaaminayo Khaliil Al-Haya inay yimaadaan magaalada Qaahira si loo sii ambaqaado wada hadallada la xiriira u gudbidda wajiga labaad ee heshiiskii xabajoojinta ee la saxiixday bishii Oktoobar sanadkii 2025. ilaha dowladda Masar ayaa laga soo xigtay dadaalada dhexdhexaadinta inay weli ay socdaan iyadoo xiriiro iyo dadaallo xoogan ay u dhaxeeyaan dhinacyada ay qusayso arrintan si loo sii wado wada hadallada la doonayo in iskoorimaadkan lagu soo gabagabeeyo. wada hadallo cusub ayaa la doonayaa ka hor dhamaadka toddobaadkan inay dhacaan loogana hortagayo burburka heshiiska ku imaan karaya kadib weeraradii ugu dambeeyay Israa'iil ay ka geysatay magaalada Gaza iyo hadalladii ra'iisul wasaaraha Israa'iil ee ku saabsanaa qorshaha lagu doonayo in lagu qabsado 70% dhulka magaalada Gaza.
intaasi kadib waxaa soo baxaya in dowladda Masar ay xiriir la samaysay dhexdhexaadiyaasha iyo damaanad qaadayaasha oo ku kala sugan Qatar iyo Turkiga iyo sidoo kale saraakiil Amerikaan ah si dib loogu soo laabto wadadii wadaxaajoodka. waxaa kaloo ay dowladda Masar ay sheegtay inay diyaarisay warqad cusub oo wax laga bedelay si loo xalliyo caqabadaha iminka taagan. sida laga soo xigtay ilaha dowladda Masar, Qaahira, Dooxa iyo Ankara waxay aaminsan yihiin in hadallada iyo tallaabooyinka Netanyahu ay si weyn ula xiriiraan dana siyaasadeed iyo doorashooyinka gudaha, gaar ahaana isaga oo wajahaya cadaadis iyo caqabado kaga imaanaya furmaha kala duwan ee gobolka. Masar waxay digniin u dirtay Israa'iil iyada oo caddaysay inay si buuxda uga soo horjeedo tallaabo kasta oo shacabka reer Gaza lagu riixayo in si ikhtiyaar ay kaga haajiraan dhulkooda ama ugu yaraan lagu cadaadiyo inay ka gudbaan marinka Rafax. sidoo kale Qaahira waxay si adag u diiday hadalladii wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil kaas oo dhawaan oo sheegay in Israa'iil ay fulin doonto qorshe loogu magacdaray hijriyada ikhtiyaariga ama in dadka shacabka ay si shakhsi ah halkaas ay kaga baxaan waa gudaha magaalada Gaza. Masar waxaa sidoo kale ay maamulka madaxweyne Trump ka codsatay inuu si degdeg ah u farageliyo oo uu xakameeyo tallaabooyinka Netanyahu si heshiiskii xabad joojinta uusan u burburin. dhanka kale ila ka tirsan xogaga iska caabinta ee Xamaas ee dibadda ku sugan ayaa xaqiijiyay inay heleen xiriiro iyo fariimo kaga imaanaya dhanka Masar oo looga gol leeyahay in la dejiyo xiisada taagan isla markaana la badbaadiyo wadaxaajoodyada. intaasi waxa wararku ay ku darayaan in la filayo in maalmaha soo socda kulamo cusub ay ka dhacaan magaalada Qaahira si looga wada hadlo si ambaqaadida ee dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta, sidoo kalena loogu gudbi lahaa mustaqbalka ee heshiiska xabad joojinta. Xamaas ayaa maalintii Khamiista waxay ka digeen in heshiiska xabad joojinta ee magaalada Gaza uu burburo, iyagoo sheegay inuu qarka u saaran yahay burburka. waxaana ugu baaqeen Mareykanka iyo dhammaan damaanad qaadayaasha inay qaadaan tallaabooyin ku qasbaya Netanyahu iyo saaxiibadiisa joojinta duqeymaha ay magaalada Gaza ka fulinayaan. bayaan ay soo saartay Xamaas ayaa lagu sheegay in maamulka madaxweyne Trump laga sugayo mowqif cad oo ku cambaareynaya xadgudubyada, iyaga oo tilmaamay in duqeymihii ugu dambeeyay in ka badan 20 ruux oo Falastiiniyiin ay ku dhinteen. Xamaas ayaa si cad u sheegtay in heshiiska xabad joojinta uu wajahayo khatar weyn oo burbur ah sabab la xiriirta weerarada joogtada iyo xadgudubyada Israa'iil ee ka wado gudaha magaalada Gaza. digniinta dowladda Masar, qorshaha ra'iisul wasaare Netanyahu iyo fariimaha ka imaanaya xogaga iska caabinta ee Xamaas sida ay isu waafaqayaan. barnaamijyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa wax walba oo soo kordhay insha Allah. like sar muuqaalka lana wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.